magacii waxaa la Saciid Waasi Cabdulla Akram. Shalay waxaa idin maaday anoo murugsan, maantana waxaa idin maaday anoo faraxsan. Waxaa u mahad celinaa dadkii oo garab isiiyey oo nolol ii sameeyey inta aabay raadinay. waa Saciid Waasi Akram, waa Saciid yarkii Yemeniga ahaa waaye. farxadiisa intaan u gudbin waxaan rabaa sidoo kale inaan idin xusuusiyo hordhicii hore ee shalay. magacii waxaa la Saciid Waasi Cabdulla Akram oo hooyadii Soomaaliya aabihiis Yemeniga oo hooyaday maskaxiyan u xanuunsatay. hooyaday waxay dhahday maanta kadib anaa dad dursaalka ah magaalka gal. adeer oo hooyo furay aa la joogi jiray asna way igtay. cidii hadda la joogi oo la seexan jiray waxay dhaheen waa guur rabnaa meel raadsa. dadka Soomaaliyeed waxaa ka codsanaa inay i caawiyaan aabay iyo la raadiyaan. maadaama maanta arrintu ay sidii shalay ka qurux badan tahay waxba igama dhintaan aniga. waxay iga ballan qaadeen haddii Saciid arrintiisa xal loo helo subscribe inaan soo dhehaysiin. balse waxaan idin sheegaynaa qisada Saciid iyo arrin kale oo cajiiba oo soo baxday, balse marka hore nagu soo biir. isbitaalka taqasuga ah Muqdisho wuxuu ku wargelinayaa bulshada in lagu soo kordhiyo waxda qalimada neerfaha iyo lafdhabarta. waxaana ka howlgalayaa Dr. Tamaam, khabiir ku taqasuya qalimada neerfaha, lafdhabarta iyo burooyinka madaxa. wuxuu fulinayaa qalimada lafdhabarta, qalimada burooyinka madaxa iyo dhammaan qalimada la xiriira neerfaha. isbitaalka taqasuga ah Muqdisho, halka aad ka helaysaa adeeg caafimaad oo loo kalsoon yahay. salaamullaahi calaykum saaxiib yaal, soo dhawaada. waa mar kale barnaamijkii baafinta baadigoobka ummadda Soomaalida ee Lintir. muuqaalka maanta waa farxad, weli waxbaa naga dhiman, laakiin saas markaan leeyahay waa idiin sheegi doonaa ka cumraynta waalidinta socoto $300 hooy ah midkood bishii ugu wanaagsaneed, bilaha ugu wanaagsan ee qof markaasi wax uun loo qabta ayaa lagu jiraa ama la cibaadaysto. waa bishii Rajab, weliba dabayaaqadeeda aynu maraynaa. ka cumraynta waalidintuna socotaa $300 hooy ah midkood, labada waalid $500 diskoona jiro, ka faa'iidayso. sidaa daraaddeed waxaan kuu sheegi lahaa culamaa udiinka ayaa samaynaya, annagaa hubinayno oo muuqaalada markaa hesho ku qanacdo, sida sacyiga, dawaafka, safiya, maruu muuqaalada laga duubay, xirashadii masacaasha, cumrada kumbud waa qanacsan markaad tirahdo ayaan lacagta culimada u fasixi doonaa. adigana markaas aan ku dhihi doonaa allah ku aqbalo cumradaada. culamaa udiinka ayaa samaynaya. waxaan wakiilka ahay cali geedi, ilaahay cumrada u aqbalo. waxaan ugu soo xiray shirkadda Anwar, waxaan ugu soo xiray ninka la leeyahay Muxsan Cabdicasiis Riyali. alanwaar wixii maanta aad u qabato waalidka iyo qof aad jeceshahay bir waxa ku qaban doono caruurtaadii qof aad jeceshahay. Saciid soo dhawow mar kale, magacaaga waa aqaanaa balse waxaan jeclaan lahaa maanta farxsanta ku jeedaa qodlusa. soo dhawow marka hore magacaaga dhammaystiran qofkaa tahay dad sheeg. waa dhawaay magacii waxaa la Saciid Waasi Cabdulla Akram. maanta Saciid farxsan waay. ah Saciid farxadaada waa bilow. ah maxaa ku farxsan tahay? ma aabaha heshay? say wax u dhaceen? dad fara badan soo raadinayay. bal marka hore inta arrinta aabaha u gudbin, yaa ku kafaalo qaaday oo ala noosha hadda? Maxamed Salaad Maxamuud. dad badan kula soo xiran hooyooyin badan oo rabeen inay noloshaada kafaalo qaadaan. maxamed muxuu kaa ballan qaaday ku dooratay? yaa muxuu kaa ballan qaaday? iskuul iyo waxbarasho anaa ku geenay. waxay dhaheen guri hooyaday walaalayaal joogaan, ayagaa la joogaysaa dhahay. meel seexatid cuntadan anaa meel kuu saaray dhahay iyo waxbarashada. waxaa jira hooyooyin badan oo kula soo xiriiray. qaarkood waa ka dhiga adeegta, waxaa jira aniga meel in lagu xiraya ma rabo, kulaajo kale ma rabo. maxaa ka wade? yaa maxaa ka wade? kuleejaa lagu geenay dhahen. haye kuleej ma aadi karaa dhahen. waxaa rabtaa famil caadiga inaad la nolaato oo qado quraac cashadaad meesha aad ka hesho, jiif hesho, markaa rabtaa banaanku soo bixi karto, waxbarashadana aad dartaa oo asaas iskuulkaa u dhawto sida ciyaalka caadiga iskuulla digtaan. okay waa yahay. marka markii ay kula soo xiriireen yaa la tashatay oo kula joogay oo bartay oo kaga soo dooneen? yaa labada saaxiibayaashe iyo walaashood. dadka aad la joogtaa kugu wareejiyey. waa yahay. hadda kadib reer waa beriyaa tahay. waa gartay. dad badan kula soo xiriireen oo kusoo wacayeen. maalin telefonaan ku iibinay, lambar lagu sameeyey. dadka ugu badan ee kusoo wacay maxay ku dhahayeen? mid waxay dhahday Hargeysa ku wada, midna Nairobi. anina Cabdicasiis ku wacaa dhahay Cabdicasiis warsa. Cabdicasiis wuxuu dhahay
hadda ninkaana anoo meesha jooga xaafadaha jooga hasoo soo wixi waa kuu jooga intaa jooga ay dhahay oo tagi marka isla markiiba waa soo baxanin ayagaa la jooga markii baafinta lagu sameeyey inta aabbaha u gudbin yaa kula soo xiriiray marka hore hooyo ma kula soo xiriiray familkeeda maya abti hooyo cid kusoo wacda ma lahan maya abtigee mari soo waxay haye waxay dhahay aabbaa maa raasinoosaa dhahay haa dhahay qadkaa kaa arkay raasoo dhahay abtigaa hooyadaa dhashay miya mise abtigaa hooyadaa qabowa mid hooyadee la dhashtay makusoo wacay adeerka hooyadaa qabo la noolaa jirta maya mise wixii walaalkaa xiriir mala samaysay maya makula soo xiriiray waa gartay weli laakiin cabsi badan iyo murug badan kaa muuqato maxaa dhacay maya ya maya ma murugsaneed waa faraxsan tahay hadda maadaama lagu kafaalo qaaday oo nolol aa heshay diyaar ma u tahay inaa nin fiican oo aan seegseegin oo waxbarashadiisa barto inaa noqdo diyaar ma u tahay haa run sheeg wallaahi ceebka imaamays maho waa yahay qoyskan si loo ogaado oo caddeyn aan uga reebno qof kamid aha wareysan doonaa ayagana si lagugu ogaado maanta dad inta lasi kaa dhiibo ma lagaga hari karo soo ma ayagana dukumiinta ka reebi doonaa wax kale oo hadda aada tabayso ma jiraan maya arrinta aabbaha bal ka waran aabbaha markii baafinta aa samaysay oo magaciisa halkan aa ka yeerisay maxaa xog heshay aabe ya aabbaha xog maxaa ka heshay wax ma kelin mar kale aabbaha fariin u dir maxaa dhihi lahayd ya aabbaha mar kale la hadal maxaa u sheegi lahayd aabe ani wiilkiisa inuu isoo raadsado aabbaha magiisa dhamastir nagu celi waasi cabdalla akram adigana saciid waasi akram allah dadka kula soo xiriray dadku caawiyey oo lacag kusoo dir ma jireen oo ku dhahay dharka iska bedel isoo qurxi waa maasan tahay lambarkaagana kugu soo dhaceysa lacagta adaa maamulinay qof kula maamusho ma lahan saaxiib qof kale waa yahay maxaa kaloo hadda kaa dhiman nool ahaan waxba mii dhiman habiyaa tahay waa faraxsan tahay aada maasan tahay saciid intaasoo keliya ma ahan marka sheeko noocaan oo kale ay jirto muhiimadda ugu ballaaran waxay tahay annaga waxaa aada u hubinaa war qofkan lagu wareejinayo ma soo muuqan karaa meeshaan wejiis maari karnaa ma rabno inaan wax mugmugdiya duugna mogtahay saciid aabihiis dad fara badan oo yeman ay la soo hadlay rajo fiicana laga leeyahay helitaankiisa laakiin ka hor ajir allah siiyo qofkii noloshiisa kafaalo qaaday oo yidhi cun cab waxbaro facaaw ekow nolow xorriyad ku nolow familkayga la joogo wili soomaaliyeed waa marka familkiisi qaar kamida walaalkiis iyo walaashina wana la joogaan qoyskaas waa qoys waa beri laga yaqaano waxaan leenahay allah idin barakeeyo qof kamida qoyska ayaan rabaa markan inaan idin hor keeno oo aan su-aalo ka weydino bal sidaa beri u tirahdaan wejigii saciid lagu wareejiye wejigo ahaa soo dhawow marka hore magacaaga dhamaystir walaashay bismi illaahi raxmaan raxiim walaalkii cabdicasiis aada u mahadsan yahay bandhiga uu soo bandhigay saciid haddana saciid wiil oo walaalkee ah kafaalo qaaday waxbarashadiisa hoygiisa iyo xataa wixii uu cuni lahaa marka sidaa daraaddeed gurigeenu uu ka tirsan yahay maanta laga bilaabo intii dad oo soo caawisay oo soo garab istaagtay soomaali maxamed ayagana aaday u mahadsan yihiin insha allah annagana waxaan rajeyneynaa booskii waalidkiisa inaan kasoo baxno insha allah marka sidaas inaa ogaatiinaan rajeyneynaa mar labaad cabdicasiis aad ayuu u mahadsan yahay saciid waasi cabdalla akram saciid waasi cabdalla akram waasi cabdalla akram hooyada magaceed faadimo cadow aadan saciid soomaali maa tahay maya waa yahay aabbaha kaa maqan hooyada soomaaliya ka tahay qabiilkeeda liisaan raxaweyn oo liisaan waa adiga muqdisho ma joogi jira intee ka timid qoryooley qoryooley ka timid haye waxaa la sheegay ama laiga sheekeeyey inaad dad la nooleed dadkana ay ku dhaheen marka kadib waa guur rabnaa naga tag haye intee u laabanaya markuu aadaya meel aadaay dhammalaa hooyadaa maxaa ku dhacay oyday neerfa gacan iyo lugaa beesha
maxay ku dhahda marka aniba qofa joogaya kan magaalka iska galkan iska shaqaysaa dhahday yacni anaa xanuunsan oo dulsaar ku ah kuma hay karo magaalkaa gala ku dhahda haa waayahay marka adiga waxaa go-aansatay intaa magaalada geli lahayd oo inaad aabbaha raadiso haa aabbaha si kuweysan oo sheekay hooyadeeyaa inta ka tagtay xaggay tagtay xaggaa shaqo tagtay yemen haa haye xaggay ka shaqaynays marka aabahees guursadeen anaa lay dhalay anaa weyn mid kalaa la dhalay marka haddan xaggay joogtay aabahey waa la xiray ayadan hooyadeeda soomaali joogtay hooyadeeda inta ku dhimatay way soo baxday kan labadiinayna soo wadatay aabahey oo sheegtay ilmihey iyo dhaafaa laley ayadan ma dhaafaa dhaaday horey soo qaadatay marka asna wuu xirnaa xabsi a ku jira waa soo baxnay kan soomaaliya imaanay ayadan nin aa guursaday 2 wiil ay dhashay 2 wiil ayagaa haysta aabahooda haysta ayadan waa la furi marka neerfaa ku dhacday aabaheedaa soo waday xamaraa loo soo waday muqdisho isbitaalaa la keenay anin marka aabaheyaa hooyday wiil la lashtay naakaas qabo aa la joognay kan kale ciidanu noqday ana marka iskuullii dugsiyaa dhignay aabahey marka lacagta u ceshtay lacagaa ii soo tuuri jiray hooyadayaa soo baxay marka ayadaa soo baxay waxay dhahdee aniba qofaa la joogaa kan hay imaani magaalka gal shaqaysaa ay dhahday waxaan kaa rabaa walaalka askari u noqday makaa weyn yaade way yeri ya way yeri walaalka oo kaayarso askari ku noqday meeqsana jira taade ana 15 waay asana 13 waay uu shaqayna waxay ii soo gad la uu soo gada sigaarkii waxay ayaga rabaan ciidanka haa ciidankee marka yaa magaaladu joogaa qoryooley ciidanka dowladda waa haa oo u adeega macnaha haa waya walaalka askar maroodi uu noqday oo askarta wax u adeega uu noqday adigana waxbarashadaadii wixii ay meesha ka baxeen waxaa la nooleed adeerkaasi la sheegay oo hooyadaa ay kala tageen haa oo ala nooleed haa aaw adeer wuxuu dhahay waa bixir waa aan marmar le inti maana intan makugu tagi karaa way dhahay sax waa soo baxanin dadka daraska oo xaafadiis kasin waxay dhahdee aabbaa intaa ku helays anaa ila joogay dhahday ayaa dhahay waxay dhahdee maanta kan xalay waa guur rawaa meerraas ay dhahday anin dad oo familkeena ah guur rawaa cunugaha intaa ka keentay waa lii su-aala intaa ka keentay meelahaasaa lii dhaha anin taas maro waa dhahay hadda kow shaqsigey u degnaay maantana kan meel oo walaalayaashay joogaana guur rawaa dhahay gabadhi aa la joogtay dadkaaga raadso wiilla hadda la joogtaa wiilasha maxaa sutihiin oo ula socdo asxaabaana haye xaafadaa isku barnay ceelasha biyaha maxaa isku barateen waa gartay aabbaha haddii uu nool yahay maxaa farin u sheegi lahayd aabeya maxaa ka codsan lahayd waxaa laga yaabaa aabba la markaa inuu hayn xog kaa hayn maxaa weydii lahayd aabe ani inuu asii wate oo inta dhanka taga asla jooga aa ka codsan lahaa hadda aabba lama joogtid hooyo lama joogtid adeer lama joogtid eedda lama joogtid walaalkuuma joogo muqdisho kaligaa joogo haye see ugu noolaa rabtaa magaalada marka abtigee xalay laatle wuxuu dhahey ciidan naqa nin ciidan ma naqnaya dhahay aabee raasna raasoy dhahay xalay waayahay da-da ciidan lagu qoraayo maba gaarin ba adiga waxaan kaa rabaa hadda marka dadka soomaaliyeed maxaa weydiisan lahayd maxaa u baahanta hadda ana qof mas-uuliyadii qaaday oo waxbarasho iyo raashinkii meel ii saaraya rabaa haddii helayaan amba aada waalidka dib weleysa aabbaha waa gartay aabbaha magaciisa markale noogu celi waasi cabdalla akram aabbaha hooyadiis mataqana magaceeda maya yaa kaloo ka taqaan familka aabbaha qof dhan kasa asehaynin aabbaha yemani waa yokiya yemani moogi qabiilkiis malii sheegin ma lagu sheegin hooyan way xanuunsan tahay maskixiin way xanuunsan tahay waa gartay magaalada muqdisho shaqayso ee magaalada gal marka hooy ku dhahaysay markaas ma adeeraa la joogtay mise hooyaa la joogtay adeeraa la joogay way kula hadashaa lebis marka adeerka garab uu ku siiyo adeer fiican waay
saal nooleed ah caruur adeerkaa uu dhalay maa jirto walaalatiin ma hooyadaa kusoo aroosay ah wuu aroosay sina taxta misqawin waa furay markay xanuunsatay ah laakiin adoo garab kusiiyo muddo la joogtay ah waayahay hooyadaa waa raxaweyn waa liisaansa ay sheegtay ah aabbahan waa yemani ah hadda waxbarasho intay ku gaartay ade toddobaad iskuul qur-aankan waa dhameeyey wax kale oo haysa ma lahan ama haddii qof soomaaliyeed oo iska wanaagsan uu ku yidhahdo meelaa jiifatay waxbarashaan ku siinaa ka waran si mala joogay inta aabba iyo familka helaysid aha lambar telefon ma leedahay ma maxaa lagugu qoraa muuqaalka marka wiilka saaxiibkii lambarkiis lambarkan waa laga caawin karaa ogow lacagaa laga soo diri karaa qofaa ku damaanad qaadi karo aabbaa kaa soo wici karo waa inuu mar walba daanadaa la rabaa ah soo marka middaa ku sameyna ka waran haddii aan simikaar ku qaadno ya mobile aan ku gadno oo adiga qofka soocaa ka qabato lambarkaa meesha lagu qoro taas daa sameyna ka waran okay taas bis hadda hurmud mar simikaar qaado lambar mobile la gado mobile yar oo kusii meel gaarto ya magacaaga isheeg magacaaga lagu qoraayo mar kale saciid waasi cabdalla akram saciid waasi cabdalla akram aa lagu qoraa dadka lambarkaasa lagaa soo wacaa kaasaa laga caawinaa dadka qaar waxaa laga in wax kuu sameeyaan dadka qaar inay kufaalo qaadaan waxbarasho kaa dhiibaan qaarkoodna iyo maaragtay jaalidihii yeman iyo kula soo xiriiraan soos ma fiicno haye hadda yeman inaad u laabato ma qorshahaagu ahaa ma inaad xamar joogto ahaa haddii aabbahay lii helo waa laabanaan hadduu as soo baxay dhahay wata muxuu ka shaqayn jira aabbaha moogyaan aabbaha markii ugu dambeysay ee la xiraaya ma yeman uu joogo sacuudi yemen maxaa loo xiray laguu sheegay malii sheegin weyday ma ii sheegin wax loo xir haye mar kale hooyadaa magaceeda nagu celi faadimo cadow aadan hooye faadimo waa xanuunsanta hadda marka ah hooye allaha caafiyo dadka soomaalida garab ay ku siinayaan wax duruufaa oo la kulantay amba dhib ah muddadii aad hadda dibad joogga ahayd oo adeer aa ka socto ma jireen ya maxaa la kulantoo dhiba ma wax dadka soomaliya iskaga dhex noleed ah waaya waa lagu caawinaa waxba ha oynin waxba ha murugoonin waxba ha baqiya duruufaha noocan oo kale way dhacaan aabbaha isagaba inuu kuradinaya laga yaabaa ta kale jaaliyadda yemanaa joogto magaalada dad badan oo yemanina joogo inay aabbaha aqoonsada xataa waa laga yaabaa ayagana waxaa codsan inay kula soo xiriiraan af carabi ma baratay ma anoo yaraa laga soo waday af soomaaliya ku hadashaa bis waayahay wax kaloo aanoo sheegayso aa jeclaan lahayd aanoo sheegta ma jiro ma keliya aabbaha u baahan tahay waxaa rajeyn aabinaha dadku inay ku caawiyaan haddii even oo xaaladda ay kugu adkaato oo meel aaweydane nagu soo laabanaya annaga nala joogay kay cabsan haddaba arrintan dadkii la socday bilow labaad way la socdeen waxaa jira dhacyaal fara badan iyo caruur fara badan oo aan haysan meel ay gabaad ka dhigtaan saciid waa nasiib badan yahay maadaama annaga uu nala kulmay ilaahayna uu u sahlay dadka faalo qaado hooyooyin fara badan oo isoo wacayaa jiray waxaan leeyahay saciid arrintiisa halkaasay maraysaa inaad wax u qabateen in lamid tahay haddaa marba qalbiga ku hayseen oo aa laheedeen annaga xabad u garaacanayno soomaaliya oo dhan muqdisho boosaaso berbera hargeyso meelo badan oo maaragtay dadka soomaalida ay degaan jabuuti dada soo waxtimaayeen dhammaantiin iyo kilinka shanaad waxaa leenahay waa mahadsantihiin jacaylka aa isku qabtaan ilaahay jannaha idinku gaarsiiyo gudaana muuqaalka inta ayaan jeclaan kusoo gabay ilah noo rume yoolka riyada leenahay qalbiyo farxsan qoys midaysan mar kale saciid muuqaal ku sheergaray aabbihii wuu heli karaa saciid intaan dib u kulmayno maca asalaamo jannadaas warkayna insha allah